dowladda Ingiriiska iyo xafiisyada qaramada midoobay ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ku saabsan isku xirka arrimaha bini'aadanimada kaas oo looga gol leeyahay in wax lagu qabto dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka taagan Soomaaliya. Heshiiskan ayaa qeexaya bixinta lacag dheeraad ah oo loogu talagalay baahiyaha degdegga ah ee nafaqada taas oo lagu badbaadinayo dadka, waxaana safaaradda UK ee Muqdisho ay shaacisay Jimcihii shalay. Safaaradda Britain ee Muqdisho ayaa xaqiijisay sida ay ugu go'an tahay UK inay bixiso $7 milyan oo gargaar ah iyadoo loo marayo heshiiska is-afgaradka ee la saxiixay. Dhaqaalahan ayaa waxaa loo diyaariyay in wax looga qabto baahiyaha bini'aadanimo ee degdegga ah ee Soomaaliya iyo in lagu xoojiyo dagaalka UK ee taageeridda dadka Soomaaliyeed. Safiirka UK ee Soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyay saameynta ballaaran ee gargaarka bini'aadanimo ay ku yeelan karaan gobolada ay abaaruhu sida ba'an u saameeyeen guud ahaan Soomaaliya, wuxuuna cadeeyay taageerada joogtada ah ee UK ay siiso dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. Isku duwa arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya ayaa sheegay in macaluul ku soo fool Soomaaliya la baajiyay taasoo ay ugu wacan tahay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada.